maryam binti cimraan imra-atu cimraan markay aragtay dalkii ay ku noolayd oo nuqsaan diineed ay ka dhacday oo masaajidii oo cidlaa oo qof diinta ku baranaya masaajidii laga waayey oo ummaddu adduunyadii xaggeeda u jeesatay markay aragtay ayaa nidar waxay gashay tidhi inii nadartu laka maa fii badnii muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim ilaahow nidar waxaan kuu galayaa ilmaha calooshayda ku jira inaan diintaada uga dhigi doono waqaf. diintii waa kaa laga sii jeestay ee laga yaacay dhabarka loo jeediye ilmaha aada isiisay waxaan ballankuugu qaadayaa inaan masaajidka masjid al aqsa la yidhahdo intoon geeyo oo halkaa camari doono diintaada ka shaqayni doono. deedna ilmihii ay filaysay wiil inuu noqdo laana inta badan dee nebiyadu wada wiilo rag bay haayeen gabadh nebiyada qur-aanku ma sheegin raggu ayuunbaa ilaahay nebiye kasoo dhiganayay wamaa arsalnaa min qablika min rijaalin ilaa nuuxii ilayhi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhim fasaluu ahla dikri waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa. ambiyadii lasoo diray oo dhan rag bay haayeen iyaduna markaa wiil bay u malaynaysaa caloosha inay ku sidato laakiin waxay dhashay maryamo ayay dhashay. markaabay ilaahay barido waxay ku tidhi wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaytaani arajiim ilaahow anigu dee marka hore waxaan moodayay wiil inaan wadee laakiin gabadh baa ii dhalatee gabadhaasina maaragtaane iyada iyo duriyadeedana waxaan kaa magangeliyey inaad shaydaanka taabashadiisa aada iiga ilaalisid ayaan ku baryoon kaaga magangeliye ilaahow iiga magangeli bay ku tidhi. deedna markaasaa ilaahay ducadeediibuu ka aqbalay. maryamo baa la yidhi iyo nebi ciise waa labada qof ee adduunka markay yimaadeen uunan shaydaan uunan taaban baa rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam. oo qof kasta oo dhasha markuu dhasho waa ka baqaaq ilmuhu u ooyaa marka u horeyso adduunka yimaadaba shaydaankii raacanayay ee qariinka ahaa ee qur-aanka lagu sheegay ee la saaxiibayay ayaa taabanaya walaakiin maryamana ma taaban shaydaankaasi baa la yidhi inankeedii ciisabna maryamna shaydaankaasi ma taaban oo ilaahay baa uga ilaaliyey. wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaytaani arajiim leanna hooyadood maryamo hooyadeed iyo aabaheed baa dad wanaagsan bay ahaayeen dad wanaagsan oo diin leh oo masaajida camira oo awliyaa oo ilaahay u dhow bay ahaayeen oo ilaahay xidhiir fiican la leh. ilaahay ducadoodii maaragtaane dhulka ma dhigine waa loo aqbalay ducadoodiiyo maryamo iyo ilmihii nebi ciise ee marka dambe ay dhali doonto ilaahay uga ilaaliyey baa layidhi shaydaanka inuu ka taabto. maryamo ilaahay wuxuu ku arsaaqay walad bilaa aabba waa nebi ciise calayhi salaam laanna ilaahay waa sidoo doona yeela weeyaan. aadam calayhi salaam caro keliya ilaahay ka abuuray xawana ilaahay waxa uu ka abuuray feedhii nebi aadam buu ka abuuray nebi ciisena bilaa aabba ilaahay abuuro ummu ciisa ayaa ilaahay ka abuuray caloosheedii maryama. basharka kaleo dhanna waxaa laga abuuray laba waalid dhexdooda laga soo saaray. deedna maryama waxay noqotay gabadh ilaahay cidhiidh fiican la leh. xidhiidhka ilaahay la lahayd wuxuu gaadhay heer cuntaday cunaysa in samada looga keeno. inagu waxaan u haysanaa un ragga un ina awliye noqon karaan ya ragga un culamo noqon karaan oo ragga un ilaahay u dhowaan karaan may gabadhaasina gabadh saalixadoo taqiyadoo ilaahay cilaaqala labay ahayd. bal qur-aanka ayaa sheegaya malaa'igta hadalka malaa'igta ay maqli jirtaa la yidhi. malaa'igtu maryamo hadalka malaa'igta way maqlaysay. waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu qnutii lirabbiki wasjudii warkaci maca araakiciin waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay. uqnutii lirabbiki rabbigaa adeec baa lagu yidhi oo ilaahay bari oo adeec oo u sujuud oo u rukuuc. maaha qur-aan waxa ku soo degaya laakiin malaa'igta ay cilaaqa la yeelataa la yidhi. cibaadadeedii iyo taqwadeedii iyo diinteedii iyo xishoodkeegii ayaa qima halkii u sarraysay buu gaadhay. deedna markaasaa malaa'igtii baa looga qaaday daahi baa la yidhi daahi kashfigii. deedna qur-aanka lagu magac dara suuraddan suuratu maryama. daa'iman qur-aanka waxaad nebiyana qur-aanka waa loogu magac daray oo nebi maxamed suuratu muxamed baa loogu magac daray. nebi yuunus suuratu yuunus baa loogu magac daray. ibraahim suuratu ibraahim baa loogu magac daray.
nuux suuratu nuux baa loogu magac daray suuratu maryamana qur-aanka way ku taallaa iyadana maryama. ilmahay dhashana ilaahay nebi buu ka dhigay, nebi rasuul ah oo reer bani israa'iil loo diray. waa nebiga keliya adduunka 2 goor yimiday baa lihi nebi ciise. horeyna uu u yimiday, aakhira zamaankana uu soo degi doonaa oo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa nebi ciise ayaa korkiina kusoo daadegi doonaa isaga oo maaragtaane 2 malag garbahooga saaran buu arlada iman doonaa, shareecadda islaamku adduunka oo dhan yuu gaadhsiin doonaa buu rasuulku yidhi. marka gabadhu inay muuminad noqoto oo ilaahay u dhowaatay cilaaqo la yeelato ayaa ka mancinaya. gabadhu inay daaciyad noqoto ayaa ka mancinaya. gabadhu caalimad inay noqoto ayaa ka mancinaya. asxaabu rasuuli llaahi sal alla alay wasalam masaa-isha xadiidka masalada isku qabtaan caaisha la weydiin jiray. ibnu mascuud marka loo yimaado ayuu nid ordo caaisha soo weydiiya. ibnu cabaas baa su-aal la weydiinayey, ummuna caaisha ordo soo weydiiya. kii u yimaadee su-aal weydiiyena wuxuu ku odhan jiray caaisha ma u tagtay? haa. maxay su-aasha kaaga jawaabtay? sidaasay igu tidhi. waa siday tidhi weeyaan. mowduuca ay caaisha ay ka hadasho fiqiga hadday tahay, xadiidka hadday tahay, tafsiirka hadday tahay, saxaabadu kama daba hadlayn, khalaas kamay daba hadlayn. marka innakoo haweena waa ka shaqo badan tihiin ragga oo aqaladii iyo ubadkii iyo mas-uuliyad daakhiliya oo aqalada dhexdeeda ininka ini saaran, haddana waxaa laynaga rabaa inaad ku mashquulin maaragtaane oday iyo raaligelintiisa keliya iyo ilmaha u adeegidooda keliya inaad ku mashquuline, adigoo dharigii karinaya, dharkiina maydhaya, ninkaadiina raaligelinaya, ilmahaagiina tarbiyadda wanaagsan ku tarbiyadaynaya ayaa lagaa doonaya inaad haddana ilaahay xidhiidh fiican la yeelato. sidii gabadhii saalixadda ahayd ee la odhan jiray rixlat alcaabida, habeenkii ninkeedu markuu intuunan iman uu maskiidka ku maqan yahay ayay dhar aada u qurux badan intay sii xidhatay isku diyaarin jirtay baa la yidhi. deedna marka uu soo galo ayay ku odhan jirtay hayta laka yaa sayidii, iwaykane waa kuu diyaar baan ahay bay odhan jirtay. diyaar baanu ahay khidmadaada iyo raaligelintaada. markaasuu odhan jiray habeenka uu yidhaahdo waan daalanaho aan seexanayaaye adiguna iska seexo iska nase. markuu yidhaahdo dharkay isaga ugu labisanaysay intay saartay meel fiican ku laalaabato ayay dhar waxay xidhanaysay adag oo maaragtaanay baaliya. deedna aqalkeyga meel yaroo dusha ayay ku lahayd ay fadhiisan jirtay. halkaasee markaa salaata leylka ay bilowdo xilligaa ayaa salaada fajar loogu eedaami jiray, iyadoo ku geeraaraysa oo leh ilaahayow xidigihii waa kaasoo way daateen. habeenkiina mugdigiisii xaggaabuu ka soo ziyaaday, maalinkiina xaggaabay ka dhabar jeedisay. boqoraduna albaabadoodii way xidheen, qof walba albaabkiisii hoosta ayuu ka xidhay. qofba qofkuu la jeclaana sariirta dusheedu kula keliyoobe. yaa rabbi anigu adigaan ku jecelahe albaabada naxariistaada iga furo, toobadda iga aqbal bay lahayd. gabadh kaleo iyadna addoon bay ahayd, addoon oo sayid bay nin bay markaa maalqabeen ee addoon u ahayd. addoontii markay ninkeeda habeenkii u shaqaysay u adeegto ayay ku odhan jirtay wax kalood iga baahan tahay ma jiraan? maya. deedna markaabay ilaahay baryi jirtay. su-aal bay weydiisay ku tidhi yaa sayidii, horta adigu sayid ma leedahay? haa sayid waan leehay. oo adi sayidkaaga waa ayabay ku tidhi. markaabuu ku yidhi waa rabbigay, rabbigayba aniga ii sayida. markaabay ku tidhi dee sayidkaagu ma seexdaa? maya ma seexdo. dee rabbigaagii ku abuuray hadduunan seexanaynin adigoo addoonkiisiiya seed habeenkii u seexataa bay ku tidhi. anigu adigaan addoon ku ahay bay ku tidhi. intaa aada soo jeeddo hurda ii iman mayso, laanno adigaa aniga maaragtaana isoo gato isoo iibsaday. waa berigii dadka addoomaha la gadan jiray la iibsan jiray. adeegaaga ayaan heegan u ahay, ilaa aada seexanaysana ma seexan karee adiga sayidkaagii maadaama ood leedahay ma seexdo uu soo jeedaa, seed u seexataa bay ku tidhi. subxaan allah. kelmadda ay ku tidhi ninkaas ayaa qalbigiisa ilaahay bedilay. habeenkaasaa ugu dambeysay hurdo baa la yidhi. isaguna wuxuu bilaabay inuu habeenka wixii ka dambeeyay ilaahay la munaajoodu salaata leilka u kaco. marka gabadha muuminadda ilaahay waxay kaga xidhmi kartaa gabadhu aqalka dhexdeeda. halka ragga la doonaya masaajidda intay tagaan inay jamaca masaajidda ku tukadaan, ininka salaadiini waa aqalka dhexdeeda weeyaan, diin barashadiini waa aqalka dhexdeeda weeyaan, tarbiyaddii awlaadda waa aqalka dhexdeeda weeyaan,
waqarna fii buyuutikuna baa la yidhi waa xijaabka u horeeya gabadha muuminada laga rabo waa ina gabadhu noqoto gabadh gurigeeda ku ego gurigeeda joogta. gabadh reer madiina oo ansaariyada ayaa nabigeena u timid calayhi salaatu wasalaam, markaabay ku tidhi yaa rasuul allah salaada inaan kula tukado oo masjidkaaga ku tukado oon gadaashaada ku tukadaan jecelahay, bal ka waran. markaabuu nabigu uhi waa khayr, laakiin sida anood igula tukatay masjidkayga waxaa kaaga khayr badan buu nabigu ku yidhi adoo ku tukada maaragtaane aqalkaaga dhexdiisa ku tukadaa kaaga khayr badan buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam. falidaalika hooyooyin iyo walaalahay baa tihiin, waxaan isku baraarujinaynaa haddaan doonayno liibaan iyo raaxo iyo horumar iyo khayr haddaan doonayno dadkii wan wanaagsanaa inagu horreeyay waa inaan ku dayno weeyaan. mathal dad waxaad haysataan inia maaragtaan exambaler mathal dad mathalaad haysataan. islaamnimadu waa diin cajiiba, way noo qoran tahay siiratu saxaaba iyo siiratu saxaabiyaat. cahdigii nebiga gabdhihii adduunka joogay siiradoodii baa laynoo qoray. cikrima ibn abi jahl saxaabiga la odhan jiray allah raalli ka noqday, abi jahl baa dhalay. abu jahl waad garanaysaan, waa fircawn hadihi اlumma, waa fircoonkii ummadda nebi maxamed inankiisii weeyaan. markii uu maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ayaa magaalada maka ku soo socdo ku soo duulay, u dhunto u baxsaday baa la yidhi. wuxuu damac u go-aansadayba inuu jaziirat alcarab intuu ka tallaabo uu badaha ka tallaaboba. xaaskiisii zawjadiisii umu xakiim radia allahu canha ayaa maqashay markaa ninkeedii inuu firxay uu baxsaday. deedna markaabay nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam. deedna markaabay ku tihi yaa rasuula allah waxaa igu maqala bay tihi cikrima adiga ayuu kaa firxay oo uu baqayaaye hanu yeedho han soo qabtee oo islaamnimada ha ilaahay ha ku deeqo ha islaamee. yaa rasuulallah ninkaasi nabad ma la siino ma la nabadgelinayaa? markaabuu nebigu uhi huwa aaminun biamaan illah, haa nabad waan siinee oo ilaahay nabadgelyadiisiibuu haystaaye hadduu ku yeelayo orodoo soo kaxeeyo iikeen buu rasuulku ku yidhi sal allahu alayh wasalam. bal gabadha muuminaddu siday ninkeyga uga fikiraysa eeg. ghulaamkeygiiba soo kaxaysatay. ghulaamku waa addoonkeygii baa markaa jidka intay kusoo jireen ayuu damcay inuu faraxumeeyo. markaasay sasabtay ku tidhi waxaad doonaysa waan kuu yeelaya, horta meel hangaadhno. reer markaa carbeed bay ku soo weecatay. markaabay tiri ninkan waa addoonkaygii, inuu dariiqa igu qasbo igu faraxumeeyo rabee ii qabta bay tihi. markaas loo qabto waa loo xidhxidhay. way soo socotay baa la yidhi, waxay soo gaadhay shaati albaxr, badda xeebta ayay timid. markaa cikrima ibn abi jahl oo halkaa doon ka fuulay, oo doontii uu fuulayna baddii ayaa kacday, baddii baa kacday. ninkii naakuudigii doonta waday ayaa yidhi akhlisuu. markaasuu cikrima yidhi war ikhlaaska inaad sheegaysaan muxuu yahay? markaasaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh, laa ilaaha ila allah dheh. markaasuu yidhi maa harabtu ila min haada, waxaaban ka soo firxayba waa kelmaddaa buu yidhi. lanna carabtu zaman jaahiligii markay caafimaadka hayaan ee barwaaqada hayaan asnaamtay caabudayeen, markay dhibaata ay la soo daristana ilaahay bay baryayeen. waa ka ilaahay qur-aanka ku yidhi waidaa rakibuu fi lfulki dacwu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun. mar alle markay maaragtaan maraakiibta iyo doonta ay fuulaan ee badaha dhexdooda maaragtaan dabaylaha iyo baddu ay ku kacdo, ilaahay bay baryada u baraxtiraan baa ilaahay yidhi. ilaahay keligii bay baryaan, laakiin berrigii markay yimaadaan ee cagaha dhulka ay dhigaan ee nabad ay dareemaanna shirkigii iyo gaalnimadii bay ku noqdaan baa ilaahay yidhi. dabeecaddaasi waa dabeecad basharku ay ka siman yihiinoo markay barwaaqadana bini aadamku way qooqaan, maalinta bini aadamka la yar qabtana ilaahay bay ku soo ordaan. waana sifadaasi waa sifo xun weeyaan, ma wanaagsano. qofka muuminka iyo gabadha muuminadda sifada lagama rabe ogaada. qofka iimaanka leh muuminka waxaa la doonayaa barwaaqada markaad haysatan ilaahay ku shukri, dhibaata hadday kula soo daristana waa loo sabraa, waa la adkaystaa. cikrima marka dadkan ula socdan oo wada gaalo mushrikiin bay ahaayeen. markuu yidhi war ikhlaaskaad sheegaysaan muxuu yahay? markaasaa lagu yidhi war laa ilaaha ila allah dheh. wuxuu yidhi anigu kelmaddaa baaban ka soo baxsaday buu yidhi.
ها كلمة دابات كسو بحثتها ها لأن مركب كيف دون تبى الله سوء عليي حاس كي سيبو مركب وقوي مدو هلكا أوتاجن أم حكيم رضي الله عنها محاكو كان محاكو كان مركب بيتري هذا هو صعدا إن النار كبد بدت بندونا يا أنو ده والله يدلي لو دلي مايو وحنكو جينا يا محمد عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام رسولك إلهي أيان أتجي وكل النبي الله عكرمة أيا كابحصد إن أبي جهل النبي الله نكه على نبت قليو وكل نبت قليو النبي عليه الصلاة والسلام إسقان أيكا صدري ولي النبي محمد فكر ذات كهيسة ما هي صداد مودي سي بشر كإلهي أبوري وشخصك أقول دلقات بدن أقول نحريس بدن أقول دبرنت بدن أقول حريرنت في عن هدي لي هذا قرابة يدل هلا حريريو وشخصك أقول حريرنت وناكسن هدي دلقات نقطنا وشخصك بشرك أقول دلقات بدن هدي نقطة ماركتانة بارن منا وشخصك بني آدم أقول بارسن هدي نقطة ماركتانة نحريسنا خلق إلهي أبوري وأقول نحريس من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأوش يكتب مركا لأنه هو يسوق حيث أنت صوص صبتي بحذا مركا مريان إلا وحاس كيسية ويسوق حسليه واد قبتايا وحاس كاجية ما لها مركا دحنا مريم ويرطم عيو لأن مركا بيكتر هاي سودوان وهو يابي وهو محي وهي بلا يمتهين ها ونكاجي ما نهين ها وحاس كاجي متوانا هاي لكن متهين عكرمه وأديكو هذا مشرك باتهاي أنا قلنا قبل مؤمنات ومسلم أنا هو يمسو دوان يسد بيكوتلي قبل مؤمنات ومسلمة أيانا هاي مركا يمسو دوان كريسي عجيب إيمانكو قلبكو مركا أو قالو عدة يحريرين يانا مركا بوي قرنيين عدة يقوين يانا مركا بيكو يفهم جرين لأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شروط هذا أي مركبة تلقائيا أصحاب النبي أي برانيين يفهمين حيث الوريات جوكسو لأنت هذه وانها هذا مياه مي هذا وحنها قبل مؤمنات ومسلمات هذا قلنا نن مشرك وقال باتهاي إلى أدك إسلام يسيمس ودوان كريس مركز يابي وحود أرن كان مارك تاني إيكا ديدي إيكا كان منعيي والله هو أرن وين بكويري دين تان إسلام كي إيكا كان نبيسا والله هو الدين وين بيوري مركب يكتر ولا بقي غلام كي أدون كاجي هذا طريق قادم عين وقفر حمايو هل قرر كهذا أنسيم رينبو يقول حرية هيترو والله يحري حري أنتوا أي مدبو قورتك بويه بالليل مركز عكرمة مركز مون الإسلامين ودل إنك بالليل مقالة دي مدينة مقالة دي النبي أوكي أنت عليه الصلاة والسلام مركز النبي الله كان عليه الصلاة والسلام نبي وصود ويا عكرمة وأبي جهل إنك سويان أيانا صوت تشكيليو دين الإسلام كأبويا لي وزوجة ديسي تعاون كلا بعض قف إمارة تاني قويس ككد حياة واحد وقوين وقوم مهم سن حريرك إلهي بالربا مركو ورسلنا نسكت تعاوننا إنكم ما أنت واحد لقى يا بالله بعض قف مركز جور سدان بقرشاه وقوه الرجال كتشنا يا معي أقل هندسنا هي عيال كنا ونور عشان سومها هنكرسنا هي وحنبرنا هي حندوفنا هي مستقبل كو قدام ما كفكرنا تعاون وفي عنتهاي لما ديديو إن هذا المهاجة وحبرتا والمهاجة عضو تعبتا لما ديديو دينتك وما ديدنو والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي جواكي كلها reerkaaga intaad ka tagi lahayd sacadow iyagoo fuqaraaya oo dadka dawarsanaya waxaa kaaga khayr badan buu nabigu ku khayr badan iyagoo aghniyaay oo bini aadanka baahidooda ka deeqtoon inaad ka tagtaa ku khayr badan buu nabigu ku yiri Sa'd ibn Abi Waqqas markuu yiri xoolahayga oo dhan han wada bixiyo ha bixin buu nabigu ku yiri u kala reeb waxna labax waxna gabdhahaaga iyo ubadkaaga u reeb buu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam marka inaan ubadkeena u shaqeyno ma diidaysa diinteena islaamku laakiin tacaawunka ugu horeeya labada qof markay isguursadaan ugu horeeya ee la doonay inay ku tacaawunaan ay ku heshiiyaan waa ilaahay xarigiisa inay wada qabsadaan inay diinta ilaahay ka wada shaqeeyaan inay diinta ilaahay bartaan laana adduunyadan meel la degan yahay maaha adigu waa dhiman ninkaaduna uu dhiman ilmahaagu way dhimanayaan meesha loo socdo waa la wada tagayaa waa aakhiro sidaad adduunyadan ehel u ahaydeen haddaa doonay inaad reerkaaga iyo ubadkaaga aakhiro ehel u noqotaan inta adduunyada la joogo waa in ilaahay taacadiisa iyo diintiisa lagu dadaalo taas marka asal bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo
dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka. duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa. hadan hore ogaad wixii faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.